وحان هذا ويا عبد الكريم أحمد محمد حنف. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعن فيليا ترى إنتن لك وحسبوينها كل مياه حفلات أنا وكاله مركز سوي ما دوحة هيد شروينه قدام بيا حسبنا يكيك هريي أيه هاي هل كان حسبك أيه تاريخ ديسي ولا شيء كي أنا أقول وحبك كان نقول مايو ما له هذا الكوي إلى يرجلي كراوي جرا وحسك هذا يا أحيانا هي مكتاجن حالة هي مكتاجن سيدا إمك وحوس عضان كارهان حق حزبية المعارض كا إيوه كلا دوانا شهر قد حيا حزبك كل مية إيه حزبية المعارض كا خورنا قد حينشري وحنشعلها هاي إن أدقي إن هي أما هيسان إذا كوي قرر ليا وحكروا شعلها هاي هدي وقتكو أنت عادي قاعد ضعفه إن لا يتخيشته إن شاء الله حزبي يضو وحلو سمايستي أما يوتشران أما الله أبو ري وإن ودن لغو هرم مريو oo lagu tartamo si wadankaasi uu hore ugu maro si xisbiga marka talada haya xisbiyada kale ay u soo bandhigaan wax ka wanaagsan iyagoo khaladaadkiisa ka faa'iideysanaya dabadna waxa bulshada ay la hor limaadaan oo yiraahdaan nagu doorta marka dambena kaga dhabeeyaan taa waxaan filayaa حزبك كل مية إنه صامري سداد سنوات أو معارضها مر البوح وحكون دليلي وحقل عنه وشراه وراعيني وحاسبان كبدل دونا حزبك كل مية وحصوية شيء لما برنامج سياسات ومن الله بكون يطبنكي وأوليه كوجري midna 2017 ololihii uu ku galay oo aan oran karo anigu aan been sheegaynin aniga oo faaninaynin mid walba 90% wuu fuliyay wixii awoodiisa waxa ka dhimanna waa wax ama awoodi u diiday ama wadada loogu sii jiro la fulin doono waa waxyaalihii وقتكم معارض كهو كهذا الشريعة ما كهذا الشريعة ما ومدى له من شري وروح سوي خلدين أنه قصاص بانو صحينا كل مية دور كيس وحنا هنشري وحي وناكسن حكومة دي مركز شرطة أي قبضته إنه كتاجره إنه كراعه إنه كوهم بليايو إنه يسكو قرب تاجو وحين صومر تاريخ بدن محاكم ده حكومة دي كل مية كهريسة أضب وحيها الحكومة دي قاعدين لاسعانات ما ملك السومالي قارسيسي وحاني كو قارسيسي دي دقاء لقاله هريمي أيه كو قاعدين نبتكم أي قاعدين تاس حسب كل مية سيد لما يسترمبو وطاقيري وقانا قيب قاتي وقونهم بليي وحكم دها قرحيدي كدعay wadanka 2008 sida markay u dhacday Axmed Siilaanyo oo madax oo ha gudoomiye xisbiga Muuse Biixi ha ku xigeenkiisi iyo Firay Maxamed Kaaniin la socday sida markay u dhacday toos waxay u tageen markii madaxtooyadii iyagoo dhibaatada sida u dhacday uga tacsiyadeynayeen madaxweynihii iyo ummadii markaa meesha ku dhimatay kumay farxin kumay qoslin kumay wiirsan waa waxyaalaha kulmiye mucaaradnimadiisa lagu garanayo laga bartay ku jira waxa jira
iminka xisbiga kulmiye waqtigaas mar kasta oo hadlayo mar kasta oo xaflad samaynayo dadkiisa wuxuu ku boorin jiray dhalinyaradiisa wuxuu ku oran jiray waddanka inaga leh waddanku inaga burburin xukuumadan inaga guuleysatay waynu ka guuleysan doonaa ee yaanu waddanku inaga burburin yaan waddanka dhibaateeda soo gaadhin mustaqbalka idinka leh ayaa kulmiye waxyaalaha uu oran jiray ee bulshada u sheegi jiray ee dhalinyarada u sheegi jiray ee dadka jaanta fudud u sheegi jiray ee uu ku qaban jiray saas buu ahaa maxaa u sabab ahaa waxa u sabab ahaa hogaamiyaha xisbiga waqtigaas ee mucaaradka ahayn baa wuxuu ahaa hayin biyo madaadsha dagaalka garanaya dhibaatada garanaya qaxa garanaya kadeedka garanaya caruurta wax soo gaariya garanaya wax barashalaanta garanaya ee biyalaanta garanaya cagacadaanta garanaya intaba soo maray anigu siinaya waxa gacanyare u ahaa 1996 ilaa 2010 markii guusha la gaadho waxna dhaxay meesha wax soo yaaceen aynaan garanaynay waqtiga wax badan baan ka bartay wax badan baan uga soo joogay waxaan taagnaa 1997 maxamed kaayin wuu joogay shirkii beereed ugu dambeeyay shirarkii nabadaynta isagoo markaa socdo gabagaba ku dhow baashir weynihii 1997 Hargeysa lagu qabtay odayadii iyo waxgaradkii iyo siyaasiyiintii iyo raggii waaweynaa joogay waxa warbay soo diray waxay nasuga aan nabadaynta soo dhamaynay lama yeelin raggii kale markaa meesha tegay oo rag wada waaweyn ah waxay jeclaysteen in shirbeelaad kale lagu qabto burco oo ka dhinac socdaan gaashaanka ninkii u daruuray kelmaddu isticmaalay waxay ahayd caydiid iyo cali mahdi ka dhigi maayo tan waayo tacab baa kaga jiray lixjeclaa kaga jirtay caruurtiisiibuu u dayacay oo reerkiisiibuu u dayacay oo danihiisiibuu u dayacay oo dhallinyaradiisii u dayacay isagii ragga kale halkaa fadhiyaaba sidaa daraaddeed ayuu ku qanciyey raggii waaweynay markaa joogay sidaa u qanciyey waxaan taagnaa 2010 markii doorashada laynaga helay jaamaha laynaga helo ama layna bobayla maynu fuulin qolo kala fuushay markii laynaga helay markii laynaga helay haddaynu sii hibayno cirro kalun baynu noqoneen yayna hima waxba markii laynaga helay rag iyo dumar iyo taageerayaashii xisbiga wax badan bay istuseen talooyinkii la soo jeediyay dhowr baa ka mid ahaa kow aynu dagaalanno aynu dawlad kala dhisno aynu halkiisa ugu gallo intaba axmed siilaan iyo mowqifku iska taagay kelmad baan ka xusuustaa dagaal wuxuu ku bilaabmo waa la yaqaanaa laakiin wuxuu ku dhammaado lama yaqaano halkaa haddaba inoo dhiga axmed siilaanye iyo mawaaqiftiisii aan imaado qolyahan iminka jooga iyo mawaaqiftooda 2017 doorasha dhacday axmed siilaanye hadda tuu sidaa lahaa wuxuu 80 cod oo mugdi ku jiro tuanka iska taagay waxa ina soo maro inoo jooga 5 sanadood mid 80,000 oo cod ka daba hadlayo ka daba yuusaya maxaa ka mid ah halkudhigyadiisa waa lay boobay laynagama helin waana maahiyey waa tii kelmadda ugu dar waana maahiyey ka hadhi maayo imika muxuu marinayaa soo ma xustan imika halkuu marinayo imika wuxuu marinayaa sidiisii ma yaro socdaa dacabaar soo ii dhiman maysaan soo ii dhiman maysaan soo dalka difaaci maysaan soo dastuurka difaaci maysaan
واي دالك يا دستورك وشيء دفاعية واكي وأنا دونيستي دا ودينتا وأنا كرسي دا ودينتا وارد بهاي نجا هالشيء وأنا دمعي دا ودينتا عرورتي يدل يردي إسكول كلامه هذا وحبرشوا كلامه هذا مستقبل كلامه هذا أنتم مربدين عود حلوة أيوة واحد كود دينتا أنا كرسي دا كود دينتا وحبر بردكتا موقف كلمية وهراء وقاطي وحن لنا وضني وحن لنا عرّو دور الشدة والله هلا لق وهكون بنتو إيمانك وسيدة نكى سكارة بورك كتوريلا ويمحيري تاني كنافته تضمبه وارتيك العدو فقارها كالي ميدانك كالي سنة بتقلياه كالي سشرف له كالي ولا قولا ترتم يا ترتن ما تشرتو كلمة اللي يراهدو وامرك يجي سومالا يوقف بيقول مرسي يوقف بيقول مرسي سومالي لان وارسيلا الدلقلي بحبه كل صباح ومصبح الدلقلي بحبه كل صباح حكى لا صبح الدلقلي اللي بحبه كتيرتاي هو ما رئيس الرياض والله ترتمى يا قلو قار وحولي ما جرتي هدي قلو مركزة إنه سين لهي قلو ذا هرتيبه إنه سين لهين هدي مرمرت هاي أنت أنا كلا وين صومرت أنت أنا كلا وين صومرت هاي هدي إنه كل حساب تبع إنه تادي قلو ذا هرتيبه إنه سين لهين هدي ما أنت أنا ومركزة إنه قريصة لكن ما هو ترتوي maxay baraan hadaba qoliyaha mucaaradka qolada wadani wali maxay bartaa wadani baan wali ku jira u cid ma gaarin waxa uu codad buu doonaya bulshu ka doonaya ummad buu ka doonaya Soomaaliland oo dhan buu ka doonaya haddana Soomaaliland bad buu fanteeyay oo maalin walba madaxdooda caayaya oo wax ka sheegaya oo xabsi u ballan qaadaya oo xilka laga qaadaleeyay marxatigeedana halkaan idinku siinaya wuxuu yidhi ciro Axmed Siilaanyo waan xil bahaynin oo wareejiyay oo xisbigiisii ku wareejiyay ayuu ka daba hadlay wuxuu ka hadlayay dekada berbereeyo wadada kooridoorka maanta looga taag laayahay wax wacan baa Faysal wax wacan baa la qabtay ee iyagu maanta ay ka aamusan markii wanaageedii arkeen qolada wadani ayaa wuxuu ka hadlayay wuxuu yiri Siilaanyo waa khaayinul wadanku khiyaamay khiyaamo qaran buu ku kacay waa in maxkamad la soo taagaa wuxuu aad ugu dhahdaaday oo aanu kala reebin labadii madaxweyne ee xilka isku wareejiyay labadaba wuxuu ku sheegay in khiyaamo qaran sameeyeen khiyaamo qaran waxa ay ku sameeyeen ee uu sheegayaana waa dekada berbera iyo wadada berbera wax kale muu sheegin haday labadaas khiyaamo qaran yihiin iyo haday waxtar qaran yihiin iyo haday horumar wadan yihiin ummadda ka marxaatiyo eegi doonta haduu wax kale ku sheegayna bad ku keeni doona wuxuu Siilaanyo u sii raaciyay waa in maxkamad la hor keenaa inta markaynu ka gudubno ciro weli miyaa aragteen isaga oo munaasabad 18 May ka qayb galay miyaa aragteen maynaan arag dabeecad buu lahaan jiray 16 iyo 15 ku dhoofi jiray nasiibka iyo ayaanka takaliye uu joogay ilaahay ummadda tusay tambay ahayd tan muxuu sameeyay intuu geerash dad ku ururiyay isaga Faysal baan u soo socdaay geerash dad ku ururiyeen baa waxay waliba keeneen calankii wadaniga u cid hatta calankii qaranka may keenin waxay ahayd munaasabad xisbi munaasabad hatta eedin bay uma ekay shaqo kuma lahayn waxay kaga hadlayeen waa maqlaysan waana ka hadli doonaa waxay raaca banu soo gudbaya doorashadu
waxaan ka hayaa madaxweyne muuse shaxda labada nin wada ciyaaraya waa inay boorka faraha la galaan ka laga badiyaa dee waa inuu ka tuntaa faraho idhaa war waa laga badiyey ninkii aan faraha boorka la gelayna ka tumanayno ka bax shaxda ha soo geline waxaan qiyaasayaa boqolkiiba boqol aan ku kalsoonahay ta soo socotana in laga helayo weliba intii ka badan laga helayo muxuu samayn wuxuu samaynaya way muuqan tahay kulmiye markii laga helay buurana ma gelin buurana ma fuulin reerana ma abaabulin dagaalna ma abaabulin culaadana ma abaabulin masiibana ma yaba hosan belena uma yeedhan cidna ma caayin markaygaan sugaynaa buu yidhi waxaa kaloo nasiib darrooyinka ka mid ah nin madaxweyne doonaya oo qaran inuu taliyo doonaya oo fagaare ka yidhi deegaamada noocaasa ma arki kareeyay ii imanin wuxuu doonayaa jirin badii waxa kaloo yara iminka bilaabantay oo in la kala saaro u baahan oo in la kala duwo u baahan oo in laga daayo u baahan waa dhaqankii siyaasaddu way kala soconaan jireen dhaqankii siyaasadda la kala saaro oo hablii la bixinayaba cod lagu doonaya maaha waxaynu hore u aragnay hablu sharaf bay leeyihiin oo karaami leeyihiin oo waa lagu xididaa oo ummad bay isu keenta oo bulsha isu keenta oo dadaan isuqoon bay xidhiidhisaa oo waa safaarad maaha in cod lagu kala doono oo waxaan macno lahayn inta laystuubo baabuur basas la kacaysto laysku duulo oo laga dhigto jaanis waxay la tahay taasi inay hablaha iyo ummadda iyo dumarka meel ka dhac ku tahay karaamo darro ku tahay xaala waa idinka siinaa dee dumar waa idinka raali gelinaynaa kolle annagu kulmiya waa idinka raali gelinaya waxaa yimi faysal miyaa ka daayaa horta faysal qabyaaladda wuxuu bilaabay dagaalka kulmiye 22 May baa lagu dhawaaqay 23 May baa BBC-du wareysatay wax allaali wuxuu ay garanayay marka meel ugu jiray buu siilaayo kulmiye ku yiri maalinta hadaba maalinta ku xigtay anu shakhsiyan faysal ma aqaan waxa igu horeysay 1996 shirarkii nabadaynta ee gaashaamo iyo baalidhay iyo duruqsi iyo beeriyo deeni weyn baan ahayo xogayaan ka shirarkaas oo dhan xogtoodii baan wada hayay waan joogay duruqsi buu shiri kaalay wax ilaanu ma aqooni soo dadku wuu yaqaan horu yaqaan ma iman kartid baa loo kuma arki karo duruqsiyada u taagan waa nabadayntu sheegtaana waa taw halka ka taagnaa hortaaniga markaas ay ugu horeysay waxa igu xigay markuu u cid samaystay 2003 taasuu bilaabay intii ka dambeysay baa maalin xisbigu noogu imanayay oo ballan baa labada xisbi lahaayeen wuxuu soo maray madaxweyne Daahir Riyaale cid baa soo dhageysanaysa in yar baag taagan wax allaali wuxuu doonay inuu kulmiye ku yiraahdo ayuu ina Riyaale soo sheego Xasan Qoriya ila waa ganacsiye kadinka warkii baa naloo keenay kadinka markuu soo galu siilay war naga bax orod u tag basaaskaaga aad joogtay waan taagnaa taana waan taagnaa hanaga qaad wara bax gartii baanu gallay xafiiska cid baanu ku gallay Cabdiraxmaan Ciir joogay Maxamed Xaashi baa joogay aniga ragii gudida loo diray baanu kamid ahay labada dhinacba de waanu qaasinay anagu markaa Faysal gartii waanu qaasinay maalintaas uu dagaalkiisa bilaabay intii ka horeysay intii ka dambeysay 2003 doorashadii waxaynu xogteeda haynaa isaga iyo odayaal uu soo diray waa inta natiijada tii rasmiga ah lagu dhawaaqay odayaal inuu soo diray oo ilaahay waad heshay laakiin waxaanu doonaynaa si aanu kugu helino
faysal lacagna u celi intaasoo wasiirna u cidsii waa 2003 تشيلي وكديدي تبدو وقتي هالكي مرتين وقرانينو وذي البلد الرجاجيدي وقيب كم إذا بهد أصل كوح كلا هيدا تاسر مد بهد فيصلوا حكشة كيا قبيالة أيوك هذا وعدكوا عايا لبكون يصدق ذي واحد تاجنا هرجيش كلاب isagoo ka yidhi ilmaarey waxaan ka hadlay maaha masabit ilaahay baan la hortagaya waan furaya marxatiga hadii la weydiiyo tan silaayo ka talin maayo tan ana leh silaayo ka talin maayo waa hargeysa kilaab waxaynu taagnay maanta in cali koora halka fadhiya inuu ku yidhi adeer halkan ururo laga furmay oo talaax qabo talaax ka fur takasi dareen waxa weeye waanu aslayn bad taasoo kale way dhacaysaa muuse biixo ana leh hargeysa harshin qabo noocaas dhacaya anigu tiwaab isma lahayn halkaas gaadhisaa anigu isma lahayn ya qabyaaladu waa tafaysal halka ka taagan qabyaaladu waa tashan komishineer oo magacaabay shantuba raaskiisa ahaayeen shantuba Somaliland cid kale aan wali ka magacaabin qabyaaladu waa taa dictatornimo ka hadlaa dictatornimadu waa tu koob iyo 20 sanadood kaligi xisbi haystay shirweyne ma qabto shir golo dhexe ma qabto cid isuguma yeero qalinku hangoolkiisa afkiisu ku jiraa كمالين هذا وحده وان تاسارة قف تانكيه قصدي وحوي حلبان عبد الناصر وتانكيه قصدي فيصل علي ورابع ميا أركته وح الله ليه وحي صدح دور شو قالوا صدح بقول دعي مشرحين تي نطرت ميت كجهر ميا أركته مشرحين تي كويين كوايد ميت كجهر ميا أركته عرّ عقدبت بو كذا عرّ ده دم بقى وجيسه وركان وفرطي يسوي كعرّة مرجور كفرني حسب السدود السنة والنقانا لو ما قاعد حسب السنة وده اللي قررنا نظام كحسب يدور السنة والسنة ما هي إلا بيقول حقيقة ماله وحقيقة يقول رسمي ماله وما ويجي ما متبان نقول حقيقة يقول متبوك مقعام متبوك قاعدة متكلم مقعام متبوك قاعدة متكلم مقعام متبوك قاعدة فيصل سجى متشعلينا كل هذا ويدان وحيري بوني وحيري أنتم مش شايفين ويري مالين دو قيامي سبا كعيا ورد فيصل قيامي سبا كعيا مركا الله يابي ما يونو فريفر الله وحسن الله يابنا وأني ونكسني ودقل لهانشري أنا هاي قف ضد أفر لا تكسى عتمية وعد أن رافينين وقف وين أن رافينين وقف يران رافينين oo dumar raafaynin oo nin raafaynin oo madaxweyne raafaynin oo wasiir raafaynin oo mar qura cid qabata la waayay cidba aan oran war wada khaldad dadka ka joog mushkilada aan la yaabaa ee dhaqanaan inuu ahaan jirin waa taa waxaan kaga baxayaa kulmiye ha jiro ha joogo kulmiye maanta wuxuu Axmed Silaayo waxaan soo taagnay buu maalmo fara badan oo fuluhu u shakiyay maalmo fara badan ba fulayaal kulmiyaan ay u shakiyeen baa jiray maalmo badan ay u shakiyeen laakiin dawa aragtaan isma dhimo haruubkiisu isma dhimo ilaahayna waxa ka barin halka nooga sii wado assalaamu calaykum